السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan. Magacayga waxa la dhahaa Muna Maxamed Daahir. Waxaan ku dhaqanahay wadanka Jarmalka. Waxaan ka mid ahay hooyooyinka ku xidhan Sheekh Cabdiqani Xush Bare ee fiidiyowyadiisa daawada gaar ahaan kuwa gaadhiga. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay sheekha siiyo khayr. aad baan uga faa'iidnay fiidiyowyadu soo galiyo gaar ahaan anigu wallaahi alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay sheekha khayr iyo xasanaad ha siiyo Cabdiqani Xush Bare. fiidiyowyadiis aad bay ii caawiyeen. anuu haddaan isku sheego waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed degan wadanka Jarmalka. waxaan rabay inaan gaari bartaan damcay. waan cararay iskuul baan aaday, waan iska soo diiwaan geliyay, abkii baan soo qaatay, abkii baan rabay inaan guriga ku diyaariyo. alxamdulillah rabbil caalamiin, waan diyaariyey, waan akhriyey, waan imtixaankii baan aaday. markaan haystay muddo 5 bilood ah ayaan imtixaankii dalbaday. alxamdulillah rabbil caalamiin, markii koowaad waan kusoo baasayba. anigu markii hore niyadeeda wax ku jirtay 2 iyo 3 waxaa rabti soo dhaco, dadaal, qayb, diyaari. alxamdulillah rabbil caalamiin, waan soo baasay. gaadhigii faash dhundhihii baan hadda qaatay. dee waka haddaan wax yar iniin sheego sidaan abka u bartay. abka markaan baranayay alxamdulillah rabbil caalamiin, mar walba aan waqti yar helo waan akhrinayay. haddii aan dheriga karinayo halkaas ii saarnaa, marna moolkan xabad soo taabtaa, marna dherigaan kariya. haddaan inaan ka yaro doono aan bas stoobka aado waan akhriyayay. haddii habeenkii caruurtu iga seexdaan waan akhrinayay. markii aan waqti yar helaba wax maan isticmaalaynin social media. waxaan ka isticmaalayay Facebook iyo waxaan isticmaali jiray Facebook. waan iska xidhay, password baan ku xidhay, aanan garanayn boodaygu igu xidhay, bes bartaasaan dhigay, waan iska daayay, farahan ka qaaday, maan isticmaali. kaliya niyadeyda waxa ku jiray abka. mar walba aan jaanis yar helo waan baranayay. waxaan halkan uga sheegayaa hooyooyinka Soomaaliyeed, hablaha Soomaaliyeed dhammaantood, haddaad rabtaan inaad gaadhiga barataan, gaadhigu waa einfach gaar ahaan abka markaad soo qaadatid. haddii aad rabtaa inaad gaadhiga baratid waad baran kartaa, uu jilicsan yahay, baro. gaar ahaan waxay ka fakaraan hooyooyinka Soomaaliyeed ama hablaha Soomaaliyeed, abka uu adag yahay, luuqad ma naqaano. aniga igu tusaale qaad, anigu luuqad ma aqaani. waxaan imi wadanka Jarmalka, waxaan imi 2018 baan imi bishii 6 20keedii baan soo galay. markaas baan aaday iskuul, waxaan soo dhigtay sanad baan dhiganayay. inta hor kooraskan aaday aan soo dhigtay, waan imi markaas saa u soo dhameeyay shahaadadkooda baan iska soo qaatay. ayaan alxamdulillah rabbil caalamiin bilaabay inaan isbaalkana barto. marka aniga igu tusaale qaado, luuqad badan kuma xidhna, ma hays odhan luuqad badan baa loo baahan yahay. anigoo kale imka luuqad badan anigu ma aqaano, laakiin waa lii turjumin dhakhtarka caruurta iyo kindergartenka baa lii turjumin bes. inta kale waa haddaan u baahdo qof, waa inuu qof i caawiyo weeyaan, ma garateen. markaas hays odhan luuqad buu ku xidhan yahay. barta waad baran kartaan, waa haddii aad rabtaan. waxaan ku talin lahaa hooyooyinka Soomaaliyeed inay iska bartaan gaadhiga, maadaamuu jilicsan yahay, maadaamuu ku caawinayo caruurtaada. aad ballantii meel walba intaad barafkaa mari lahayd, faagan weyn jiidi lahayd, gaadhiga wuu jilicsan yahay baan odhan lahaa. alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay ii soo duceeyaan. aniguna inin duceynaya ilaahay idin fududeeyo. sheekhana alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay khayr ha siiyo. Cabdiqani Xush Bare aad buu noo caawiyey. waxaan ka codsan lahaynaa inuu fiidiyowyadana noo soo badiyo. wakaas